يقدم بي مؤتمر كي تضبط أنصار السنة عنوان كيسوها الأمة الإسلامية بين الآمال والآلام وقد بفر بضن سوهز قليا مواضيع داني أصحاب الفضيلة أي مال مهن أي كهلين إلهي ونوع أنفع به خير بإذن الله سبحانه وتعالى وعن عصلناها إن دقاها للرارعيو oo la isdageysto si culimadan qiimaha badan ee waqtigooda qiimaha leh inoo horay ee halkan aanu soo fariisinay iyagoo daalan marka ay kelmadoodu ay u meel martay biidilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan ba isleeyahay iyadoo quraan la aqrinayo haddii jagta la iska surayay ma culimo warkooda loo joogaya taana waa isweydiinaya haddaba biidilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan shakl nadwan ka fakaraynay laakiin salaadina way soo gashay علماءنا ويدالين هذا والله بحيا بإذن الله سبحانه وتعالى لكن قضبك أن رمنه إن أنو كجاه هذا الندودا بوحة وحمان توضن كنا كجيرة وأهديجا قدادانية إيو هالكوديجا النقطة نزدلنا ومال والباء صومالي أي دجنت هاي أو عندها أنت أقول بدن الدجان ذو أيدتكم دجيهين المودد إن يبقوا كتاجين هضمنا وككعسين وعرفنا عذرا أو نذرا ومعذرة إلى ربنا إن أصحاب الفضيلة ما أنت مكرافا كين منصدا أي فرين وجود بيان شعب كصومالي ملك سيجوجان سيدي الله إلى لها ديجا والله إلى لها درس كا يدتك إن درس أي نقدان الله إلى لها ولا التنمذا ورنتي أن نكررها كرنا آياتها عن هذا ينون أقري إمام يحيى آيات يوسوكو ويسقط بدي هالك أن كد بولي لهين قيم الإسلام يهولها صدمبا مركب صو أورنا بإذن الله سبحانه وتعالى وحن هرمرنا بإذن الله سبحانه وتعالى علماء عن مواضيع ذا هراء وجودي بإذن الله سبحانه وتعالى كدمنا علماء مرتدى إنها يجونا نقول بكلمة دي سمرك هلك كوسو شيء قدرنا بإذن الله سبحانه وتعالى وعن سعصانيا كلمة إني رنتي عن لبض دقيقة عن دافين سي صلاة عصر كأن وجارنا بإذن الله سبحانه وتعالى وعن هرمرنا فضيلة الشيخ محمد عبد أمل وأن لا يهي شيخ محاد bulshada Soomaaliyeed gaarsiin lahayd maanta marka ay taagan tahay dhibaatadan aloosan dhibkan maanta jira iyo dadkan isku dhagoona deegaan walba ay ka kacsan tahay fadil sheekh kalimatak insha Allah soo dhaw barakallahu fiik bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد إلهي توفيق داينا وفتشيو إنك رجوري بانهاي علماء مرتدى إنواء ينشد على فرصة إنت هذا بدينا نسيو إنك واسكو بدناي وإنده اسكو بطي مركا مرتدى منان تله hadday ka tegi weydo keliya waxaan rabaa inaan idhaahdo ummadda Soomaaliyeed waa ummad muslima islaamnimaduna waxay keenaysaa inay dadku diintooda ku dhaqmaan inay fahansan yihiin kuna dhaqmaan ilaaliyaanna haddii taa la waayo dhibaatooyin baa dhalanaya waana sunno ilaahi tabaaraka wa tacaala inay dhibaatooyinkaasi dhashaan markay dadka diintoodu khafiifto oo wax badan diintii ay ka tagaan waxaana ka mida in iyaga la isku diro oo dhiiggooda daadiyaan waa cuquubo ilaahay oo soo degta sida ilaahay qur-aanka inoogu sheegay قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض إن دولك الذين لقوا سمضى أي عقوبة كتمادو إن انت الذين قيبية قبائلية كوحا الذين كدقوا ليسكوكين ديرو صدح ذبوا عذاب إلهي واحد سيداس دراديد وحان رواينا إلى هذا ummadda Soomaaliyeed islaamnimadeeda ha ka run sheegto waxa ilaahay xarimay tabaaraka wa tacaala waxa ugu weyn uguna khatarsan shirkiga
shirkiga marka laga yimaado laba dambi baa soo raaca salaadoo laga tago oo kas looga tago cudurdaar la'aan iyo dhiig muslima oo xaqdarro lagu daadiyo labadaa dambi baa soo raaca dhiiggan daadanaya sababtiisu waa diintii oo fududaatay xalkiisuna waxa weeye in ilaahay loo soo noqdo oo ummaddu dhiigga ay culayskiisa garato oo dhibaatada uu leeyahay ay garato oo ilaahay loo toobad keeno in laga fogaado waxyaalaha asbaabta keenayso qabyaaladu kow ka tahay danaystanimada iyo maslaxadu laba ka tahay dawlad xumadu saddex ka tahay aafaadka bulshada haysta saldhigna ay u tahay diintii oo la fududaystay waxaan ku baaqaynaa in loo soo noqdo diinta dhiigga daadanaya la joojiyo dadka ka shaqaynayana ilaahay ay ka baqaan oo waa maanta berrina waa geeri ilaahay baa la hortegi doonaa dhiig muslima ruuxii wax yar xataa kelimo niskeed ka geysta lacagaad ku dartay iska dhaaf wakhti aad ku bixisay iska daa abaabul aad samayso iska daa gacantood leedahay iska baddaa xataa kelimo niskeed ruuxii ka geystaayey ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu hortegayaa isagoo rabbi u cadhaysan yahay tabaaraka wa tacaala marka waxaan leeyahay dhiigga hala joojiyo nidaamyada iyo dawladaha u dhisan dadka u dhisani bulshada ha u turaan oo dalka ha u turaan oo madaxda iyo siyaasiyiinta si gooni ah dabka shidaya ee dadka laynaya ilaahay haga baqaan hubka iyo dawladda waxaa loogu talagalay in dadka lagu ilaaliyo dhiigga bulshada lagu ilaaliyo laguna kala ilaaliyo cadowgeeda dibaddana laga ilaaliyo laakiin dawladuhu inay shacabkooda laayaan oo ay dadkii gumaadaan oo iyagu isku diraan sax maaha waxaan leeyahay haddii khilaaf yimaado aayaddii hadda laynoo akhrinayay khilaafka intaan gacan aysan gaadhin waxaa ka horreeya in bal markoo hore maslaxa lagu dayo xataa qoladii dawladda ku kacday oo dawladda islaamka ee caadilka ka hor timid ilaahay ma dhihin markaba dagaal ku bilaaba ma dhihin alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala marka hore maslaxa ku daya heshiiskaasi haddii uu markaa socon waayo cidda gardaran la dagaalama baa la yidhi tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed caqligu ha soo noqdo ha laysu tanaasulo dhiigga ha la joojiyo ummaddaasi fidnada ka shaqaynaysa ama social mediaha kuwa isticmaalaya ama kuwa nidaam dawladeed isticmaalaya ama qabyaalad iyo reer kuwa isticmaalaya iyo kuwa dhaqaale ku bixinayana waxaan leenahay ilaahay ka baqa aakhiradiinnana u tura ummaddiinnana u tura dalkiinna u tura waxaan kaga baxayaa oo aan ku gebagabaynayaa dhibkaa ina haystaay haddaan la helin danfayow oo bulshada qaybaheeda kala gedisan ah oo u istaaga wakhtigu haba dheeraadee oo isu kaashada waxaan sidii loo baabbi'in lahaa iska baabbi'i maayo kelimaad la yidhi iyo bayaan la soo jeediyey iyo muxaadara la akhriyeyna waa uun cudurdaarun aad cudurdaar ka heshid walacallahum yattaquun in cid ilaahay ku anfacana waa suurtagal laakiin xalku wuxuu ku yimaadaa bulshada inteeda fayow inay israadsato odayaasheeda kuwa dhaqanka siyaasiga fayow culimmada fayow dumarka fayow dhallinyarada fayow inta fayow intay israadsadaan in dagaal dheer la galo oo qabyaaladda lagala galo oo siyaasiga kharriban lala galo oo odayga qabyaalaysaha lala galo oo kuwan social mediaha aafaysan lala galo ee waxoogaaga ka raadinaya haddaan la helin bulsho isku duuban oo waxaan dagaal ku qaada si wada jir ah hadda ilaahayow waxna sii waxaa ku xigta la imaadda sababtii la imaadda marka waxaan leeyahay soomaaliyay meelaad joogtaanba intiinna fayow israadsada oo ayaan sidaa lagu fiirsanin dalka iyo dadka iyo diinta kuwa ayaan lagu daawanini inta la iskaashado insha allahu tacaala si wada jir ah loo howlgalo ilaahayna garabkeennuu noqonayaa biidni illahi tabaaraka wa tacala wassalaamu calaykum waraxmat ullah جزاه الله خيرا ميكروفون كواحد قد بسان شيخ طاهر أو عبدي فكلمة الشيخ إن شاء الله يكون وجها شعبك الصوماليات يواقعان يكون جيران الشيخ أو قد بيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه آد waxaan ugu faraxsanahay oo anu khaasatan gaar ahaan ugu faraxsanahay dadka halka yimid oo kumayaalka ah oo diinta islaamka u yimid inay bartaan waxaan u raacinayaa oo ka xumahay halkan aan isku nimid inay u ekaato beer kubad lagu ciyaariyay shacabkan iska daaya shacabkan aad qaadaysaan qofkan u fiirsan wuxuu oranayaa kubaddaasi halkee lagu ciyaarayaa marka shacabka iska dhaaf ilaahay raali geliye subxaanahu wa tacaala takbiirta inagu haddaynu damacsannahay mustaqbalka ilaahay baa haya diintiisuna waa maxfuud inaan wax hagaajinno waa inaan u soo marnaa manhajkii salafka kutubtii salafka inaan daraasayno maa ana calayhi wa asxaabi buu nebigu sala allahu calayhi wasalam daa'ifada laga warramayaana waa daa'ifada ku socota manhajkii nebiga sala allahu calayhi wasalam risaalaadka farriimaha alla u soo diray burcadkoogii waa tawxiid alasmaa wasifaat tawxiid aluluuhiya waa ka maqan yihiin meesha in muxaadaraad loo maaragtay khasiso oo dadka tawxiidka laga dhiso oo aynu jidkaa qaadno waa laga maarmaan marka allah inaga dhigo dhammaanteen ducaad ila allah oo mujtamaca islaaxisa oo wax kale haddaad weydo kelima waaxida dadka ku dhay dadka waani haweenku haweenka ha waaniyaan raggu ragga ha waaniyaan hala waaniyo haween iyo raggoo isku jira sida hadda halkan aynu nahay soomaali waxa ku maaragtay ku saabsan oo wax laga naxa weeye aad iyo aad 34 sana markii dawladdii dhacday baa ka sokaysay anu waxaan lahaa waxbaa hagaagi oo dhulka isu furmaya waqooyi bari waqooyi galbeed koonfur laakiin hadda arrinta way sii adkaatay qabiil baa la isu dirirayaa jilib hoosaa la isu dirirayaa waxa la laynayaa haween ma aha kuma jiraan dhalinyar weeye hadda soo kacday oo uu cusub yahay adduunku baa loo dadejinayaa inay aadaan barsakha iyagoo loo cadhooda xagga ilaahay alqaatilu walmaqtuulu fi nnaar iyagoo ah arrintaa wax laga naxa weeye dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka waxaan u soo jeedinaynaa inay arrintan ka fiirsadaan ayna noqonin dhiiggaa daadanaya kursi kuraadsi inuuna noqonin war ilaahay ka baqa war berri waa dhimanaysaan qabri baa inaga dambeeya sakaraad baa inaga dambeeya war ummadda u naxariista in waxay ku jirtaa qaxooti roob baa ku da'aya waa magaalooyinka soomaalida oo dhan qaxooti baa iyaa degan iska dhaaf waana dowladda kenya soo magan galay way rafaadsan yihiin waxay cunaan bay laayihiin tacliin ma haystaan taageero ma haystaan idinkiina maaragtay waxa suuroobi karta reerihiinnii iyo qoysaskiinna gaarka ah inay dagaaladan iyo midna toona ku jirin war ilaahay ka cabsada soomaali ilaahay ka baqa ilaahay alaysa minkum rajulun rashiid war wax garanaya oo wax kala soocaya inaguma jira miyaa soomaali xabad baa adduunka oo dhan u qaybisa wadacnaahum fil ardi umaman dhulka oo dhan bay u qaybsan yihiin magaalo ayna joogin caalamka ma jirto waxa keenay waa xabadda ilaahay aanu noqonno dhiigga hadda waa ka sheekhu warramaya waa xaaraam lama ogolo dhiigga inaad daadiso walaalka inaad maaragtay qabyaaladda joojiya qabyaalad baa waxaan ka dambaysa siyaasaa ka dambaysa maxamed ibraahim cigaal baan hadal fiican ka dhegaystay intuuna dhiban raxmatullaahi calayh wuxuu yidhi saan qabrigayga u ogahay inaan dhimani sidaan u ogahay waxaan u ogahay soomaali inay heshiini laakiin halla kala nasta buu yidhi hadda halla nasta nasashadii baa ku jirnaa xoogna la yskuma muquunin karo waxay maanta u baahan tahay tashi wada tashi iyo maxaanku idhaahdaa dhimirsi iyo xoodin dadka insaa la ysku keena weeye marka mas-uuliyadda u sarraysana madaxweyne xasan sheekh baa ayaa qaadaya amaam allah
marka madaxweyne allah kuu gargaaro shaqadaada laakiin ka soo bax sallallahu alayhi muhammad wa sallam. دكتور حسن شيخ علي ورسموني. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. baalku hadduu idiido waa iska dhigaya laakiin kana aqbalaan malaynaya. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. sidaa doctor cali sheegay maadaama aan ugu dhalinyarahay odayaal iyo culimmadii waaweyneed joogto aad baan u soo koobaya insha allahu tacaala. aayaad iyo axaadiidna geli maayo laakiin laba qodobun baan tilmaamayaa. mid waxaan kula hadlayaa mas-uuliyiinta iyo dadka ilaahay xilka uu dhiibay oo laba ay ugu saamayn badan yihiin mas-uuliyiinta siyaasadeed iyo mas-uuliyiinta dhaqanka. waayo mas-uuliyiinta siyaasadeedna waa kuwa wax fulinaya, kuwa dhaqankuna waa kuwa soo dhisa weeye. labadaa waxaan leeyahay maanta waxaa laynooga fadhiyey mujtamaca soomaaliyeed boqolkiiba 70 ama 80 waa dhalinyaro. howlkanna waa laga arkaya. waxay u baahnaayeen horumar, waxay u baahnaayeen nolol, waxay u baahnaayeen mustaqbal wanaagsan in loo sameeyo. qayrkeen iyo madaxaydii la midii ninka dhallinyarada ahi markuu jaamacadda ka baxo gurigii uu degi lahaa iyo lacagtii uu ku guursan lahaa iyo shaqadii uu qaban lahaa baa loo diyaariyey. dad inaga dhaqaalo badanna maaha. maanta waxaa laydinka doonayay dhallinyarada mustaqbalkooda inaad ka fakartaan, inaad wax u soo kordhisaan. laakiin maanta halkaad mustaqbal uga dhisi lahaydeen dabka inaad ku shidaan oo aad isku dhammaysaan. oo aan isleeyahay markii la xisaabtamay baa la yidhi waar waynugu bateene horta aynu gaagaabino, aynu isku yarayno iyaga. inta yaree soo hadhayna marka aynu shaqo abuur u samayno haddaanu caqligoodu sidaa u shaqaynayn. waxaan leeyahay war alle subxaanahu wa tacaala kaga cabsada. haddaydaan horumar u samayn karin xilalkiinnana iska haysta kala badbaadiya un. waxa ummaddu ay ku noolaanaysaa insha allahu tacaala. nabad hadday hesho horumar way iska gaadhi doontaa insha allahu tacaala. ummadda soomaaliyeed welibana dadka isu sita hubka isu sitana iyagana hal mid baan odhanaya. maanta aayad iyo xadiis soona u sheegi maayo. waxaan leeyahay qarni ka qarni baa la isa soo dilay. 100 sano ka hor meeshii la isku dilay baa maanta la is hor fadhiyaa. qolo waliba waxay doonaysaa lib iyo guul inay gaadhay tidhaahdo maalintii noocaas ahayd. taariikho badan baa la taxaya, horena loo taxay. maantana la leeyahay taariikh cusub baa qormaysa. war sheekadu hadday tahay inaad wax iska celin kartaan, qabiil hebelow waxbaad iska celiseen. sheekadu hadday tahay dhulkiinna inaad difaacan kartaan, waa difaacateen. ee alle subxaanahu wa tacaala dhiigga ha lagaga boqo. haddii dhiig la daadiyo ay tahay, iyo haddii ay tahay in la iskumaado, iyo haddii ay tahay waxyaabo badan oo ilaahay xarimay la sameeyo, wax badan baa la sameeyey. ee maanta caqligu inuu shaqeeyo oo ummaddan aayaheeda iyo masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda inay ka fakarto. waxaan kaga baxayaa habeen saddexaad guruub midowda culimmada afrika oo aan ku jiro ayaa nin senegaaliya wuxuu soo dhigay dowladaha afrika. waxa weeye 60kii sane ugu dambeeyey horukac dhaqaalay samaynayeen. xisaab baa saa u wareegaysa, marba dowlad baa soo kacaysa. 20ka dowladeeda ugu dhaqaalaha badan ilaa 50aadka ilaa hadda baa system loo sameeyey lagu xisaabinayo. 20kaasunbaa shaashadda ka soo baxaya dhowr iyo 50ka dowladeeda afrika. waxaan eegayaa ummaddii soomaaliyeed bal hal sano inay soo gasho, hal mar bay soo gelin. waxaan u malaynayaa haddii listada la wada bandhigi lahaana meel dambay ku jiri lahayd. marka wax ilaahay loogu mahadiyo ilaahay wayna siiyey.
cibaado hadday tahay masaajidadiiyo buuxa boqolkiiba boqol muslim sunni shaaficiya wax badan oo la wadaagayaa jira in sha allahu tacaala ilaahay waxaynu ka baryaynaa biasmaa'ihi alxusnaa inta inoo joogta haddii wanaag ku harsan yahay oo ummadda aayaheeda ay wax ka beddelayaan haddii ilaahay wax ku harsan yahayna ilaahay qacantooda wax ku hagaajiyo haddaan khayr ka soo soconna meelay joogaanba ilaahay ummadda ha dhaafiya aamiindha ilaahay hayna dhaafiyo kuwa ka khayr badanna alle subxaanahu wa tacaala inoogu bedelo وصلى الله وسلم. الخير دكتور محمود أبو شيبة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن بدن بي علماء محاضرات شيديين هل كان كهدلين وحبضنا وكهدلين soomaali qowmiyadda la yidhaahdo oo hal qabiil ah cudurka kala reebay waa qabyaalad wey waxaa isguursaday qabyaalad iyo qaad iyo khamro iyo qori iyo khilaaf markaasay waxay dhaleen qaaqle bay dhaleen qaaqlayaal bay dhaleen qaab bay cunahayaan khamray cabahayaan markaasay dil iyo dhac iyo waxa baryahan ka socda baraha bulshada waa aragteen soomaali waxaan leenahay soomaaliyey 1978 ayaa xarbiga ahliga ah bilowday imisa laga joogaa 78 afartan iyo imisa laga joogaa iyo 6 sano 46 sano ayaa laga joogaa Soomaa 46 sano dagaalkii ahliga ah socdaa cidna kuma faa'iido kama helin waa geeri waa dhimasho waa gablan waa asayqaad waa agoon waa baroor waay waxa lagu dagaalamayaa dhul baa la yiri culumadii waa joogaane qabiil dhul ma leh qabiil dhul ma jiro dhulka qof baa hantiya nooleeyay manaxya ardan mayidatan fahwallo qofka dhul nooleeya asaaska waa qof guri baa ka dhisatay beer baad ka tabcatay daraag baa ka samaysatay adaa iska leh laakiin reehbel baa iska leh 500 kiiloomitir lama soo gali karo meelna kuma taalo dhulka markii ilaahay baa dhulka iska leh innal arda lillahi yurithuha man yashaa'u min cibaadihi wal 'aaqibatu lil muttaqiin markii laga yimaado rabbi subxaanahu wa tacaala thumma dadka mas'uuliyiinta iyo dawladda mas'uulka dhulka ee shacabka iyo qabaa'ilku ma leh dhulku rooba cidla Soomaaliya jooga dhulka iska cidlada anigu waxaan ku taliyaa oo Soomaalida ku iraada wa dhulkan cidlada oo aad ka qaxaysaan dad dagaal loo baahan yahay 10 milyan oo Turkiya 10 milyan oo Masaariya 10 milyan hal soo dejiyo muslim daga hadii kala amxaarada qarmoon baa dagaysa dhulka amxaarada gaarada dagaysa soo qaxaysa hadda Soomaa annaga isku xoog badan markay hal amxaara arkaan ishi badaan durullo way leeyihiin marka amxaara arkaan way sujuudayaan ayaguna waa isbaabiinayaan war dilka iska daaya waxba keeli maysaane hal waxaan ku qatimayaa kuwa islaynahayow qofka dhintay ee reebel u dhintay ilmihiisii maxay taraan agoontii maxay u qabteen sheekhadu ka dhintay maxay tareen kanaawaca maxay tareen waxba aakhirana waxba ku tari mayaan kullu nafsin bima kasabat rahina xisaabtu waa qof iyo mas'uuliyadu qabiil maaha urur maaha koox maaha wala taziru waziratu wazra ukhra hal heshiyo culimada waxaan leeyahay culimo allah hadalka wax ku dara ficil ku dara hadalka culimada uqalada siyaasiyiinta fiican hadalka waxa lagu daro dadka lagu buuxa la kala celiyo ilaahina ummadda Soomaaliyeed colaadaha ka joojiyo dhibka inta fiican Allah garab galo inta xun Allah hanuuniyo nimanka baraha bulshada ka hadla iyo hablaha iyo gabdhaha ka hadla baraha bulshada ee qaaqlayaasha war ha dhageysanina waxaas ha taageerinina waxba macna male
وحويان وضد انتي واي وحاسا ما انت وقامينها ورهدا دغالما سن حتى برها بلشدا سو غلينا ميدكا سو غلينينا واسو دغنينا ورا كفانينا حمانتا الى توفيق الله نوافجي والسلام عليكم ورحمه الله جزاك الله احسنت صلاة عصر كي يدعى دير ونسوقيس إن شاء الله دكتور فؤاد كسودو بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم runtii ummadda Soomaaliyeed iyagoo muslina oo wax badan wadaaga ayay haddana muddo dheer waxay ka bixi waayeen inay isdilaan waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam dardaarankii nabiga ala la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd gadaashay gaalnimaha u noqonina aad unuunka iska gurtaan oo qolaba qole ay disho Soomaali geeska gees dagaal waa laga kari waayay wax laga faa'iidayo waa la garan waayay waa tuulaha abshir bacad la ilaahay ha u naxariistee wuxuu yiri waa waxa qaxootiga ka dhigay 100,000 oo qoys waa waxa qaxootiga ka dhigay 100,000 oo qoys waa waxa qalbiga noogu riday qaata ubadkiina waa shay quraafaadaho aad qadarisaan wuxuu soo wada wuxuu yiri wax qabiil ka daran jahannabaan kale aqoontaydu waa runtii wax aad iyo aad yaab u leeyahay ummadii Soomaaliyeed wali saasay isu dilaysaa ummadda waxaan leenahay ilaahay u toobad keena war qabaa'ilku dagaalka joojiya war siyaasiyiintu dagaalka joojiya war saraakiishu dagaalka joojiya war qurba joogto lacagtaad ku bixinaysaan joojiya war dumar iyo dhalinyaro taageerada iyo waxaad u fidinaysaan joojiya ya maxaa yeelay inaan halaagsano oo aan dabar goono ayaan ku dhownahay dalkeena waa ka soo cararnay meel walba Soomaali baa daadsan wadanka la isku dilayana waa saa uu sheegayo waa cidla cid ma joogto haddaad socotid 300 kilomitir waxa laga yaabaa inaadan bacid arag haddana waa la isdilayaa dhul baa la isku dilayaa barkad xun baa la isku dilayaa siyaasaddu waa yani qabiilku waa batrool siyaasaddu ay isticmaasho siyaasigu uu ku awrkacsado waxa la rabaa arinta iyada ah inaan ka waantowno oo ilaahay aan uga baqno war arintaas dhalinyaro iyo gabdho diyaar mawtiin arinta inaan ka waantowdaan inaynan taageerin diyaar mawtiin ilaahay hortii bari ma ka nahay ilaahu markhaati ka ahaw ilaahu waxaan ka baryeynaa ilaahu ummadda Soomaaliyeed qulubtooda isu soo jooyday ilaahu midnimo sii ilaahu awood sii ilaahu khilaafka ka qaad ilaahu rabbi rahmaanu diintaada u celi ilaahu madax fiican oo hogaamisa oo adiga ku hogaansan ilaahu sii ilaahu madax fiican oo adiga ku hogaansan oo iyagana hogaamisa ilaahu rabbi oo sii ilaahu khaatimadeena hagaaji ilaahu khaatimadeena hagaaji subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sidaan tilmaamay salaadii waa taagantahay waa hal daqiiqo barakallahu fiikum dr Ahmed Daldiif bismillahir rahmanir rahim hal daqiiqo waa dhamaad sooma maxal hadli halkaas daqiiqo haddaan ka faa'iideysto horta Soomaaliya hadda waxaa la sheegay 47 sano ay dagaal ku jiraan marka wax kale dhimin ma laha ina ummadaha madoob intay shiraan kuwaan mahashiina hal qaybiyo qaar halisiyo dawlad fulaan halisiyo marka ina dhamaantan ay noqdo maartay did oo tabaan dawlad lahayn aniga kalimadeedu waxaan ku soo maartay aan ku koobaya dadka mas'uuliyiinta ah oo baarlamaanka oo fadhiya oo dooranay dadka mas'uuliyiinta ah oo u daran kali ina maalintaas waba u soo go'ay fasalba u soo go'ay kan meegaad bixinaysa intaas aan la fiirinaynin midkan kee wadani ah kee ahli diin ah kee ma aan la fiirinaynin maxaa tahaysa kan muxuu haystaa marka haddii ay noqoto arrintii dadkii meeshii looga talinayay oo baarlamaanka Soomaaliya uu noqday meel dadka lagu gato maxaad u malaynaysaa wadanka Soomaaliya dhumin ana waxaan leeyahay kuwa baarlamaanka ilaaha ka absadaano dadka soo gelinayaan han noqdaano dad ay la soo hoshay oo diin lagu soo heshay oo akhlaaq lagu soo heshay oo wadaninimo lagu soo heshay yaani noqonin dad oo maartay la soo gatay oo biri lacagta haduu helo asal wadanka waxba ku falaynin marka walaalayaalow Soomaaliya haddaan nahay
ma garanay waxna kala qaaday diintayna waa mid luqadayna waa mid mudibkayna waa mid kulliga midnimada wuxda waa inoo dhamaatay laakiin waxa dhibka nugu hayo waa tii rasuulku yiri alayhi salaatu wasalaam dacuuha fa inna mumtina qurunkaasna baabi'iyay qurunkaas haddaan la iska celinin oo qofka ku fogaanin Soomaali waxay ku socotaa anay waxa aad u ayidaya kalimadan sheekh umal uu maartay oo soo jeediyay dad fiyo culumadii oo intii mujtamaca aqsaamtiisa ka kooban tahay dad fiyo inta la helo oo u kacaan oo ummadan u taliyaan ma haddii kale 47 sano saas loogu soconaya saas waa ina ma dardaaranka oo maanta shirkan uu ka soo baxo waaba laga hadlaybo waaba dardaartii hadda gulgulusha la jooga Soomaa marka insha Allah Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ummadan Ilaahay inuu mideeyo ummadan Ilaahay mid ka dhigo oo maartay maanta waana la majarsanaya waxaan leeyahay milyan xufaad haddana ay diinta naga martay quraanka aaw marka walaalayaalow insha Ilaahay ka cabsano ummadayna u turno wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum Sheikh Yahya, don't kill your brother, kill you. Don't kill your brother, kill you. أنا أقول لك بارك الله فيك هاي داني إن شاء الله. بسم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحي روحان ربا إن نسحسوس إنه سلف كم حكير هذين في الندى. سلف كي سيدا سفيان ابن عيينة رضي الله عنه وشاقي سوقو كورينا يا خلف ابن حوشب وحيري سلف كامركي في النضة مقلان قبي أولية هي امرو قيس بي أخرين جرين الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل امرؤ قيس حكم مثلي دقالك في النظر قبرير وعرض وقفك سو جعل يهي قفك سو ربين وقاتو قبدي وحوي مركي وينات ودقالك سيدا ويهي وكلي وقروح ضيدي اي تكتو ولد عجوزا غير ذات حليلي قف جعل مالي والله عرري مركي دق نقطة قبدي دقال كان واسيذ وكالي شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل قف دوانا يهرات سنة مالي في النذا واسيذا دقال كو اللي جعل يهي لكن مركة دنبي فرتا لقنيني سيذ وكالي ابن مليكة رضي الله عنه في النظر مركي لغشيكي ودعي سنجري تانا إنا كنت دعي سنو اللهم إنا نعوذ بك أن نفتتن اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتتن بكنت دعي سنجري تاسان سودر دارمينا دعاءنا إن لبضيو حالك في النظر يدقال كان آخر كيسين وصدان نقونا والحمد لله رب العالمين وحن صودوين يا فوما MB, my brother, my friend, Mr. Abdulaziz, فليتفضل مشكورا مأجورا. شكرا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا علماء كما ترسني وحن وعدي سوما جودين كري لكن علماء وحن الشيء لها باريتان الاسم أنا ورتو حن كشقيا الرماها amniga iyo dadka la sukeenaya dadka isdagaalsan ummadda isku dhacsan qabiilaadka isdagaalaya inaan isu keenna commission ama guddi shaqadaas ka shaqeeyo ayaan commissioner ka ahay baaritaan la sameeyay waxaa la arkay in dadka ay wax u dilaan ayada ka maqan tahay saddexdan sabab mid ka mid ah ama laba ka mid ah ama saddexdaba qofku waa inuu diin la'aan yahay kow laba ama qofku waa inuu yahay reer magaalo xumo ay hayso tacliin xumo macnaha ilbaax xumo ay hayso saddex dawlad la'aan dawlad uu ka baqaaye ay jirin waddanka aan ka hadlayna
saddexdaba ma ku sifoobay mase kuma sifoobin marka arrintaas arkaa cumar inay falanqayso mid ay u falanqayso ay fiiriso war dadka madiin la'aan hayso dawladana ma jirta waa ognahay laakiin tacliinna ma loo baahan yahay saddexda qodob in laga shaqeeyo la gidgidiyaa loo baahan yahay finally sheekh waxaan ku sheegaa Soomaali waxay profession ka dhigatay qaxootinimo qof profession kisba qaxooti u yahay adana wadanka u dayaysaa mashaakil waayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام. ايش عبد الرحمن هل دقيقة بارك الله فيك عبد الرحمن طويل بارك الله الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه محمد مدائنا متقنا ندوة تهي صومالي دغالada faraha badan ka soo maxal wax xalliya xalkeeda waa si culimada igu horeyso dhan sheegana qofka dadka markuu u dambeeyo wuxuu sheegay inuu helo badan yahay wax cusub oo la iimaan karin waa in ilaahay laga baqo mid koobaad ilaahayna ka baqna weeye subhanahu wa ta'ala laana qofka ilaahay haduu ka baqo wax badan baa cilnaya waasic buu yeelanaya waasic diin buu yeelanaya wax badan buu ka qabsoomaya Soomaalida diin cilo ma qabto Soomaalida waa hal ummad Soomaalida waa hal luqo Soomaalida waa hal dagaan waxa u dhaxay waa fitno iyo sheedaan wuxuu ka shaqeeyay xaqada maxaa laga hadlayaa ummadaha markay taas u dhaqdaan maxay khatar u yihiin inay cirib go'aan haddii hadda sida dadka dawladda hadda barkoodna hadda aan shay ku dhacday inagu dhacdo oo qayb dawlad la raaciyo qayb meel loo diro qayb ma taqaana dawlad ay ka tirsan lagu daro maxaa noo soo baxaysa dallaan war ma dallaanta naanfici war qaxootigan ma soconayo war bari waa la isu soo rari dib baa la isu soo celini xagas ku soo noqoni war guriga aad ka guurtaa dad ku lijis xagas soo noqoni war ma ilaahay laga baqo war qabiil xaqu dadka geynaya ana wali ma maqal intaan aqliyeystay qabiil wax lagu dhigay wax lagu anfaca wali ma maqal ruux haduu baha wax lagu ma siiyo hadii deen lagu yeesho wax lagu ma siiyo muxuu u keeni karaa oo kaliya waxba la dilay deedo wax ka bixi waxba la dhacay dhac wax ka soo bixi meeqa wiilo ka dhimatay saad wax u heli kartaa iyo wax la mid ah ayaa dhacdo marka ilaahay intaan ka cabsoono Soomaalida socodka aan wadna socod fiican ma aho in qabiil la isu dila sax ma aho in labada walaalaha ay inta xabad iska hortimaado xaqiiqata waxa dhamaanaya dhalinyaro oo bansi la sheegay Soomaalida dadka hadda maalmaha dhalinyaro badan doqoodi maxad moodaan iska leedaan war dhalinyarada hadda naga dhamaatay maxaa noo soo harayo hadda qolaba ay si dagaal u gashay ay haddana ay si baabado intay soo harteen inta qoryo la isku dhiibay la isu diro meesha joogan la isku laayo waxa la isku haysta dhul uu ka badan yahay waxa la isku haysta dhul uu ka badan yahay waxa la isku haysta waa diin la'aan diinta laga tagay marka dhulna kuuma filaanayo magaalana kuuma filaanayso xoolana kuuma filaan maayin waa si la sheegay nin la gatay oo markuu barnaamijka galay lacag ku galay wuxuu ku taraama laho markii lacagta ka dhamaato ama bari ka dhamaatana meeshu ka yimid qaxootiga ku noqoni asoo ma taqaana soo ahaan jiray ala kulli xaal ilaahay maxaan ka barayna subhanahu wa ta'ala ummadda Soomaalida inuu kala qaboojiyo ilaahay qoriye waata ilaahay Soomaalida ha ka dhigo ilaahay qabiilka ha ka yareeyo ilaahay qabiilka ha naga bixiyo ilaahay dad isticaal ha naga dhigo ilaahay diinta ha noo soo celiyo ilaahay muxuu ilaahay ayyuhalladina aamanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan war furqaan baan u baahannahay waxna kale hagaan u baahannahay war diinta aan u soo noqono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh نور كبير حربا نص دقيقة تي شيخ حسين جيبوتي تاذا اسكو قادنا بس نص دقيقة بس جزاك الخير الحمد لله إلهي بما هذا ودان إشكال يا أخوتي في الله الله سبحانه وتعالى قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور قيمة الإنسان بالدين مركب حلقة دون إنسان كتوبة يتقير الأعمال هذه إلهي سبحانه وتعالى إنسان كوتوبة كينو وعماشي وحميد وكتق وسكبدلو أعمال وناكسن ومالمها نورا علماء إن قالها الليين ولي ماذو إنسان كقيم ويلنيا لأجل هذا ومد إلهي سبحانه وتعالى وحقوق قيمي دين يددال دين
الله ما ربط سعادة الإنسان وفوز الإنسان وفلاح الإنسان بكثرة الأشياء ولا بقلة الأشياء ولا بفقدان الأشياء، بل ربط سعادة الإنسان وفوز الإنسان وفلاح الإنسان في هذه الدنيا وفي الآخرة فقط في الدين. لأجل هذا يا أخوتي في الله إن دينتي دعوة كشقينو هدان دينتي دعوة كشقينو الله سبحانه وتعالى يفتح باب الهداية لغير المسلمين ويفتح باب التوبة للمسلمين. لبدا شهادة لنمانو تدال دين هدى لنمانو إلهي الباب كهداية أيو غير المسلمين وفريا مسلمين تنوحوا فريا باب التوبة. لأجل هذا إن دين تكشقينو وبيأذى مات عن أركينو سد عشاء أفر عشو إنت سوء إسلام تماركينا. لأجل هذا دي بيئة الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام هجر من مكة إلى مدينة المنورة كون بيئة الإيمان وبيئة الدين ودخلوا الناس أفواجا أفواجا. تأينا دين تكشقنا سعودية رومانيا إن شاء الله. الله نوافق. بارك الله فيك وما شاء الله وسوكوبتي. شيخ محمد إدريس مير سدو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عدك وحوى حرية وحبضا عدك ما قارسين كرو، لكن الكلمة أون ما دام شيخ ويقو خصبي من به متغانا مركوه الرئيس هلكا وحن كفردنا قال لنا نيروبي دل كان كينيا nabadgelyadan aan dacwadan iyo khdiintan iyo khayrkan aan ku gudanayno bacdallaahi waa dowladda nidaamkan iyo amnigan iyo xorriyaddan dadka ku kala hagaysa oo soo jeeda baan ku fadhinaa meesha dowladdan ku fadhinaa. marka horta waa u mahad celinaynaa halkan waa uga mahad celinaynaa bacda shukri illaahi dadka reer Kenya dowlad ahaan iyo shacab ahaan intaba dalkan ilaahay subxaanahu wa tacaala deganaantiisa iyo nabadgelyadiisa iyo xasiloonidiisa iyo khayrka dadka muslimiinta ay ku haystaan allah u siyaadiyo, allah inoo daayo, allah noo siyaadiyo. inta midda labaad waxa weeye weligiin ma aragteen idinku isbitaalka ama xabsiga ama markaska la geliyo dadka waalwaalan qofna ma tegay idinka mid ah ma tagteen ama ma sawirsan kartaan? dadkaasoo meel laguma hayo, meel baa lagu hayaa. ka warrama dadka isbitaalkaas ku jira ee dee sidaas xaaladoodu noqoto haddii iyaga inta la soo daayo dowladdan Kenya loo dhiibo ka waran militariga ciidanka xukunka wasaaradda baarlamaanka haddii iyaga loo dhiibo ka waran fadhi karina meesha maya. hadda ka hor baa sheekh mustafa wuxuu yidhi soomaalidu waa dadka keliya ee dadkooda waalan dhegaysta. ma maqasheen warkaas? aniga marka mid kalaan ku darayaa soomaalidu waa dalka keliya waa dadka keliya dadka waalwaalani xukumaan. ha iska qabtaan inta miyirka leh sida uu sheegay sheekh maxamed cabdi umal. war dad miyir qabaa dagaalka ma wadaan, dad miyir qabaa dawlad ma hayaan, dad miyir qabaa meesha idinma joogaan. ee intiina miyirka qabtaa intaan waalan ha laga qabto, ha la daaweeyo, meel ha la geliyo, markaasaad noolaanaysaan. bilahi tawfiiq. جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ مصطفى. الشيخ مصطفى ما كدينا ما كدينا شيخ علي هذه إن مغلب أيه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، هل كان ملوح الربعون الصومالي كلمة لو شيء ميلي شوكتبا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام
أفر مالمود قدهود بصدح جير خطبة دي أفر مالمود أي صدح جير خطبة دي النبي عليه الصلاة والسلام عرفية دول تشوقو خطبة دي يوم النحر بو خطبة دي اليوم الثاني من أيام التشريق بو خطبة دي وأفر مالمود يصدح خطبة دوت waxay kutubul xadiis iyo culimadu soo ururiyaan saddexda khudbadood inta badan inay isku wax sheegayeen intaabana muslim wuxuu uga digayo u lahaa waxaan idinka digayaa dhiigiinna iyo maalkiinna iyo cirdigiinna sharaftiinna inaa wax yeeshaan intaas waa idinka xaaraan markaasuu nebigu wuxuu ku celceliyey calayhi salaatu wasalaam فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض markii la yidhi dimaaga iyo amwaalka iyo acraadda waa xaaraan bay idinka yihiin sida maalmahan xurmada leh iyo beledkan xurmada leh xaaraanta u yahay ayuu nebigu wuxuu yidhi aniga gadaashay gaalaha u noqonina badhba badhka kale madaxa ka jaro soomaali waxaan weydiinaynaa markaa ma nebi maxamed baa degaysan mise odayga kule dagaalan ama siyaasi ha noqdo ama oday qabiil ha noqdee ma nebi maxamed baad maqli calayhi salaatu wasalaam mise kaa intaad maqashaabaad aakhiro hor iman doonta adigoo kaa daba socda isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa uu ku tilmaamayo ahlu cirka dadka degan iyo dhulka cidda degan hadday isugu tagaan qof muslima dilistii la akabbahum allahu fi nnaar ilaahay dhammaantood naar buu ku gurayaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo nebigu yidhi kullu dembin casa allahu an yakfirah dembi walba in ilaahay dhaafaa baa la arkaa ilaa man maata mushrikan mid gaalnimo ku dhintay aw mu'minun qatala mu'minan mutacamida labadaa xadiidka nebigu wuxuu ka soo reebayaa kuwa dembigooda la dhaafaya inay ka tirsan yihiin bale wuxuu kaloo nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka qof mu'mina dila oo fakhtabata biqatlih oo ku farxa dilkiisa waxaan yuutuubaradu ay shubayaan iyo dadku waxaanay ku sheeg iyo fadhi ku dararku reer hebel baanu leynay intan baa ka dhintay intan qofka qof mu'mina intuu dilo ku farxa dilkiisa laa yaqbalu allahu minhu cadlan walaa sarfa sunniya faraltoona alla kama aqbala baa la yidhi soomaali ma waxay rabtaa inaan ilaahay sunniya faraltoona ka aqbalin ma waxay rabtaa inay ilaahay la collowdo ma intaad inaan kula mida raacdo warkiisa baad ilaahay la colloobi doontaa subxaana wa tacaala waxau nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam aba allahu an yajcala liqaatili lmu'mini tawba waxaan sheegay oo dhamma waa xaadiis xasan ama saxiixa أيها الأحبة هدين ربنا دبتني حللنته صومالي أنت الدولة شيغته مع إثيوبيا كثير سبكودر كل الكلايدا سكوة الدر أنت الصومالي حكمت ديك باك السعودة أنت الصومالي حكمت ديك كالسعودة عد كلامها هو يدا يجا استيلية نبينا عليه الصلاة والسلام حيري haddii aanay dadka muslimiinta iyo ilaahay kitaabkiisa isku xukumin jacala allahu ba'sahum baynahum ilaahay baa dhibtooda iyaga ka dhiga dhexdooda haddaynu rabno inaynu badbaadno waa inaynu idhaahnaa war waxaynu isku hayno ilaahay kitaabkiisa aan u bandhigno waxaynu isku hayno bini aadamku wuu isqabtaa dhib maaha aadamuhu waa isqabtaa laakiin soomaalidu waa dadka xalkoodu dhibtooda ka dhib badan yahay hal qofaa la dilayaa maxaa xalaynu uga dhignaa saddex ka soo dila war qof bay joogtay qof aan ka wada hadalno maxaa laga yeelaya qofkani dhimay tii allaaba timoo la dil maxaa xal ah waxaa xala in shan reer hebela loo dilo kuwa kalena maxay xal hayaan shan bay naga dileen in 10 loo dilo ilaa iyo intaan naarta ku wada gurmaysaan ilaa meel kale kuma socotaane reeruhu waxay rabaan inay naarta buuxiyaan qolana qolada kale inaanay ka boos badanin waxaan ku soo koobayaa
intiina halkan fadhida ilaahay barya in dadka ilaahay kala joojiyo intiina halkan fadhida ha ka qayb qaadanina inta warkan meel uun ka maqlaysana waxaan leeyahay bal waxaad isku daydaa ma ilaahay baa kula weyn mise bini aadamkaa kula weyn ma ilaahay warkuu ku yidhi baa kula weyn mise aadanuhu warkuu sheegayo wuxuu doonabaa kuu sheego ayaa kula weyn aakhire maxaad ilaahay la hortegi dagaal baad ku sii ordaysaa waad geeriyoone sow naar maaha ilaahayow igub naar baan doonayaa waxaad la ordaysaa maaha kuwa madaxdaana waxaan leeyahay war haddaad magac iyo maamuus doonaysaan xataa dunawiya aakhiraba haddaydan rabin ee magac iyo maamuus duniyeed doonaysaan nebigu calayhi salaatu wasalaam inanku awowga ahaa intuu eegay buu wuxuu yidhi inankaygani waa sayid waa madax waayo laba fi oo waaweyn oo muslimiina ilaahay subxaana wa tacaala ku kala qaboojinaya war haddaad magac iyo maamuus xataa doonaysid muslim aad disho ku heli mayside dadka dhex galoo kala qabta waa kuwa ugaasyada ah waa kuwa salaatiinta ah waa kuwa siyaasiyiinta ah waa inta culammadee ka agdhadhow meelaha laysku dilayo war ilaahay ka baqo oo dadka kala celiya oo waxaa ku kala celisaan ilaahay kitaabkiisi wuxuu sheegayo إلهي كتاب كيسو حشاقي يكوك العليا صلى الله على محمد جزاه الله خيرا فضيلة الشيخ القارئ المقرئ الشيخ عبد الرجيد شعلي صوفي حليا هاي لبا قيبوت كلمة كؤادا موضوعا وكهل لأنه هي الدعاء دي انت أنا واحد نحتاله بيان كي علماء ذا أولا نقول الأقرين دون فضيلة الشيخ الدكتور فؤاد وأقرين دون مركو الشيخ كلمة دي سيرات هذا اسكالات اللهم يسر بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد marka ugu horeysa kelimadan ku saabsan ee culimadu ay soo wada mareen carabkoodana ku soo dhufteen dilka iyo isdagaalka iyo tafarruqan iyo qabaligan iyo asaasan maalintii nabi aadam aabaheen aadam abulbashar isaga iyo ummuna xawaa ilaahay dhulka u soo dejiyey waxaa la soo raacsiiyey bacdukum libacdin caduw qulna hbituu minha jamiican bacdukum libacdin caduw waa xukmi ilaahay oo jira weeye in iqtitaal uu jiro waana la socotaanoo labadii ugu horreysay ee isdilay ilmo aadan bay ahaayeen waa iska soo socotay mar kastaba diinta ilaahay iyo ilaahay oo lagu xirmo iyo aakhiro oo la rumeeyo unbaa xal ahaan jirtay had iyo goor nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dadka loo soo diray dad laguma tilmaami karin iqtitaal dhexdooda ugu dhaafay iyagii dhexdooda dad laga waaninayey aabba laga waaninayey oo lagala hadlayey gabadhii uu dhalay ee fildatu kabidihi gabal yaroo beerkiisa ah iyadoo soo jeeda inuu intuu god u qodo afgambi ugu tuuro u aaso waxaa la sheegaa marmarka qaarkii oo siyarka ku timid nin yacni ka sheekaynaya xaaladdiisii hore anna gabadhayda god baan u qodayaa buu yidhi iyaduna yacni garkayga ciidda soo gaadhay bay iga masaxaysay markaasuu afgambi ugu tuuray dad noocaasa ayaa ilaahay u soo diray oo diinta ilaahay xal uga dhigay oo markii dambe dad noqday oo qaadat alumam noqday oo isku mid noqday oo kal jasad alwaaxid suu nebigu ku tilmaamay hal jasad keliya noqday waa bidiin illaahi wey marka waxaan u malayn kelimadda meeshan yani ku wajahan ama aan ka mutaysan tahay ama aan dhegaysanayno culimmada hadalkooda waxa weeye waa hadalka aan ku celcelinayno oo ah xalku waa inaan ilaahu noqonno waa inaan tooba keenno anuu berigii xamar mar baan aan tegtegi jiray oo adigu 93 94 goor ahayd garan maayo meel aeroboor waxaa ahaa jiray xaggan daafeed iyo agtiisa meel ah lambar 50 miyuu ah yaan ka soo degnay koox badan baan ahaynoo multaqa dacawi aan u soconnay iyo kulan
diineed baan u soconay culimmadii aan wada soconay oo dhan markii aan afisyooni marayna baan ka waxaan aan leexan xageen ku leexanay meel lagu tilmaamay tiirka la isku toogto ma taqaani ma maqasheen dadkii Soomaaliya halkaasaan tagnay oo waxaan ilaa culimayo aynu tooba keenno waxaan u malaynayaa maalintii raggii shuhadada ahaa ee ilaahay dartiis loo dilay iyo diinta ilaahay u istaageen caradii uu ilaahay maalintaa carooday unbaa weli socoto isbedbedelaysa marka inaan horto ka tooba keenno sheekha wakiilaha كم 70 ما تضباطن ولقى دقال قبيل ما بدنا ما بقول يسبق لكن هذه أقول وحى حلوة إن إلهي وتوبة كنو ربي قانون نقنو ودينتين وأيضا بنقل نقطه فردا وجماعات وأمم إن دينتين أيضا بنقل نقطه معقول معها الله عريسا إن علي يهب الإهشين ما بهشين كرامبا ما بهشين كرامبا علومات دعيسين ويجرتاي ويري إلهي وصومالي أنت أي أديك كبرنا يسوع والدين هذا وصل نقنيسو دولة في عنها بس هنا ولا إلى حد كنت عين إنسان أقناي أو تاجن ورد أو تاج مركينا الإلهي ونقنو ربنا سبحانه وتعالى وتوبة كنو هذا الكي أمبان سيئت كينا يعلم ماذا أي فعل عليين أو قف الله قفكي وحكى جيسن كرا إنه أرنتا خرجوك سدو وماشي يقولني وكلمات دي وكل هذه لها في سبيل الله وهي تذكر ولا لنا إسرائيل يهلا كلا إلى اليوم إن شاء الله تعالى دينتنا نوصل نقولنا وحا خير هل كان كذا العلماء إنه شيء جيسنا أي نسخد إنه فردا وجماعاتنا نقول رغنوا الله نوافق إن شاء الله بارك الله دعاء نوجد بين بإذن الله سبحانه وتعالى إنك قدرنا إن فضيل الشيخ أمل تلوين كيسي كوبيجنا مركزات كلا تقديرين إن لداية تغطيات كان لكن إيضا كوابا بإذن الله سبحانه وتعالى هل كا وحافظية شيخ ظاهر أو عبدي وأنيق الشيخ خيجا مركز سيجاري سجهل وسديتني يسدح كتاب وأن ما لها كتب لغي أقري جزاه الله خيرا سنة كان وإلا الحمد ونقول شرفي إنه نجا أقبل بإذن الله سبحانه وتعالى جهودي سافرتن كسنة كبضنا دعوة أوسو تاجنانا وحلا كوبي كرمها سادرتي الشيخ محمد الدريس ويستاق فضيلة الشيخ ظاهر بارك الله فيك شيخا أن تكريمين 1 minute بإذن الله تفضل فضيلة حياك الله بارك الله فيك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شيخنا الشيخ ظاهر أو عبدي أفرتن سنة كبضا أيو دعوة إيا دينتا إيا توحيدك وتاقيا هاي إلهي سبحانه وتعالى باكا أول مرينا يهسا إلهي وقبر يهينو لكن إنان أنه دي رجلينو علماء دينا سنة كي هراء واتينو سيدان وكاليتو أينو كل رجليني مؤتمر كسنة والباء إن قف أينو كتكريمينو سنة كي هراء وحوها الشيخ محمد عبدي أمل سنة كان وحين لجوغا مركي الرئيسي شيخ ظاهر أو عبدي إلهي سبحانه وتعالى عمري يعافماد بركة له ودعوة له الدين لله السيو إلهينا سبحانه وتعالى أمد سيدو هربا وقصوا أنفعي الله كو أنفعه شيخو دادكي وقوريد لصحوضان قيب وين كسوقاتي إلى مالنتي وجامعة إسلامية كسوبحي إيا كهربا waddanka gudihiisa ayuuna joogay culimadii qurbaha aaday ma ahayn meelna ugama bixin intaasna kitaab iyo dacwo iyo diin buu ummadda u akhrinayay ilaahay subxaana watacaala ha ka abaalmariyo ilaahayna subxaana watacaala cimrigiisa dacwo iyo khayr iyo camal saalixa ugu khatimo annagana raalli annaga ahaado intaas yar oo taqdiirka ah ayaan u qadimaynaa jazaahu allahu khayran baaraka allahu fiikum sheekh daahir iga guddoon بسم الله الحمد لله horta waxaa la yidhaha shuhurada oo dadka hortiisa dadku ku wada bartaan wax fiican ma aha waana ka baqaya xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii aan soo qabannay oo iska liitay inuu riyo noqdo waxyaalaha qarsoodiga yaa fiican saada salaatuleyl sheekhu waa warramayey fadliga waxay ku heshay waa sunna raatibe ama mu'akkada cid ku arkaysa ma jirto
marka ilaahay baan subxaana wa tacaala safaar dalbaynaa waxaa aad iyo aad aan u jeclaa inaa axseeyo xasan sheekh cali in la siiyo حسن إن شاء الله وأسين دونا أنت يرتع وعديك إن شاء الله تعالى الله أكبر كي بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا جزاه الله خيرا إن شاء الله هل كان وحينو هرسن دعادي ونود دعينا فضيل الشيخ عبد الرشيد شعلي السوفي وحين سوق جاري وراقات يدو تربضن ضد سنة هرا ميشن كشقيني وجيريودي ضد كانسر لغو شيغي ضد رسالة كجرة ضد كوما كجرة ضد مراد جارة له اليرا يو مركا جوري لوجو دعية الربا كوا بروبلم فاميلي أو هايست دلما قياسي كرقف الباب إلهي سبحانه وتعالى باوق ضرفك جاركا هايستا iyo gaar ahaan oo halka ugu weyna wadankii waxa ka dhacay dhibaatada jirta oo marka halka aanu insha Allah ugu duceynayno waxaanu dhiibay fadiil sheekh Sheikh Abdurrashid Shacli Sufi بسم الله الرحمن الرحيم دعاء بدنا la soo gudbiyay waxa kamid ah gabar waxyaalaha qaar oo dadka taabanaya ma sheegayna inta kale sheekh isku daba qabanaya insha Allah taala gabar yar oo saanuun la geeyay timihiina ka buubeen xiribihiina ka buubeen sunnihiina ka dhaceen xaadina ka buubtay waa cuyuun darteed gabar kale waxay sheegatay 41 jir waaye cudur baa ka bixi waaye dhaqaatiirta markay wada tagtayna waxa lagu yiri guurso waa gabar cafaafada dhoorsan saanu malaynayna insha Allah taala ilaahay guura u sala ayadana gabar kale kiliyaha ummadoo dhan waxay sheeganayaan kiliyaha iyo kansar iyo 10 sano waxaaye iyo cunug la waaye iyo mid xiran iyo waxaas oo dhan sheekhu isku daba qaban doona insha Allah taala ducada ay noo bilaabanaysa nin walbana niyadiisu ilaahay uu aqbalaya aamiin ta halla badiyo تفضل شيخ الحمد لله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنه بلغنا عن نبيك عليه الصلاة والسلام أنه قال ما دعا ملأ وأمن بعضهم إلا أجابهم الله اللهم أجب دعاءنا واغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين افتح لنا أبواب رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا القرآن وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعل حفظهما وتدبرهما في أفئدتنا واجعل العمل بهما على جوارحنا واجعل فقهها وفهمها يا رب العالمين في أفئدتنا اللهم ارزقنا حسن تلاوة القرآن على ألسنتنا علمنا القرآن واجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين وافعل كذلك بأمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين دعاء الله نقا أقبلوا انت ولا لهنا سيدا قارك دعاء قارك أسو عدستي علماء ويني ودعيان مسلمين تامشي سقوتي مدورنا آمين إلهان إلهي بانو برينا قفل بابا أمورتي سخاسك إلهي سبحانه وتعالى حاجات كوذا الله وفيو حاجات كوذا الله سيو انت بكت الله عافيو انت بكت سؤاله وبضنت دعاء اللي طلبي وبضنتهاي إلهي عافيو قبل شيء كجرتو دمان الله وضع عافيو إن الله أنتي كربيشن كربذا الله كفيدو دينت أنت اللي قوله دينت الله كفيدو dhibaatada Allah ka dulqaado
ummadaas halkaa isugu timid ee walaalaheen ee wada ducaysanaysa ilaahay baryaysa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ducadeena u aqbalo dadka walaalaheen ee islaynaya ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kala joojiyo dhiiggaas ilaahay inuu joojiyo ilaahay uu dhiigga muslimiinta walaalaheen dhacaya allow ka jooji innaka calaa kulli shayin qadiir inta wanaagsan ee fahmada leh ee caqliga leh ee diinta leh ilaahow xukunkooda iyo amarkooda ugu dhiib انت ان وناكسنين اله كقبو يا رب العالمين نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره ولا لهن غزه ككر بيسن كربدا الله كفيدو دباتدا الله كدل قادو قالداس اسو سو بهيستي ميل كستا اسوغو تيمid الله جبيو كلغود الله جبيو تدبير كودا اي wax tadbiirinayaan tadmiir Allah uga dhigo guriyahooda sidii guriyaha muslimiinta u dumiyeen Allah dumiyo dhexdooda shaqaaq iyo khilaaf iyo kelimad kala tagta Allah ka dhigo shadara madara Allah ka dhigo ilaahay ha soo dedejiyo man يبعث عليهم من يسومهم سوء العقاب سوء العذاب الله سو ددجيو يا سريع الحساب يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود الغاصبين يا رب العالمين ذاتك ولا لهن مسلمين تلبتيسن دبك الله كدل قادو إلهي سبحانه وتعالى قاجع يحسار بالغوها الله كدل قادو إلهي أمني أمان الله سيو بيت المقدس الله حريو قال قعنته الله كحريو مسلمين تملك استوجوغان بالله إلاليو إخواننا في الشام إلهي سبحانه وتعالى هو إلاليو إلهي الدولة ونأكسن ودينة إلهي سبحانه وتعالى وهو قامسا الله وديبو فتن كيد كاللغوة الله كإلاليو إخواننا في السودان إلهي نبت قليها الله وسوع عليو ودن كوذو نبت قليها ديوها ونغضين مجرمين تردبك كوهي الله كدول قادو مجرمين وحاجرة مسلمين تملك استوجوغ تردبك هذا كشغينية الله قبته إلهي قبته الله كقبته مسلمين ملك استوجوغان بالله كقبته إلهي وحان كبرينا مسلمين تردن إن إلهي دين تودو سوع عليو ردا جميلا دين إلهي وسوع عليو إنه ولي ذلك والقادر عليه أخونا يحيى هو يدي الله نحرسته لما أنت دمتي والدين هالنقدان قبل وحاجرتي أنا لشقي جرتي سنة كي ورسين نو شاقين مجمعا كشقي ليسي أو يدنا آخرتك يدنا الله نحرسته أنت دمتي الله نحرسته أنت بكتنا الله عافيه نول بو مراد كيسو إلهي ورالك إياه الله سيو إنه ولي ذلك والقادر عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودن كان خير بدن بينكو أرقني مسابقات إيا مؤتمرات إيا ملتقى وناكسن إيا حريات عن ما لبدن لقوه سنة ودن كان الله إلاليو أمني إن الله إلاليو إلهي سبحانه وتعالى وحن كبري إن أنت المسلمين تاهين باب الهداية والإسلام الله أغفره إنه ولي ذلك والقادر عليه مسلمين تجوكتنا إلهي هبركيو الله إلاليو ددكود الله إلاليو إله وددك إن سوماليا مشرقا ومغربا كوكلا فردي gaaladaas wadamada gaaladu u badan yihiin wadan gaala ma jira wadan oo dhan baada iska leh wadamada gaaladu u badan yihiin ku kala firdhay ilaahay oo ilaali ubadkooda ilaahu oo ilaali inta bugtana ilaahu caafi dhammaan ilaahu wadankeena oo hagaagsan nagu soo wada celi annagoo nabad qabna wadankeena nabad qabo oo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala u taagan ilaahay waxaan ka baryaynaa biasmaa'ihi alxusna wa sifaatihi alculaa baan ku weydiisanaynaa allah naga aqbalo ducada allah naga aqbalo dembigeennana allah dhaafo kii waalidiinteennana allah dhaafo inta majmacan ka soo shaqaysay ansaar sunna wa asxaabihi iyo culummada wadankan oo dhan dhammaan ilaahay subxaanahu wa tacaala allah barakeeyo cumrigooduna allah dheereeyo dhallinyarada shaqaynaysay habeen iyo maalin halkaa joogtay ee iyagu soo jeeday ee gabdhiyo wiilalba leh khayr baan ugu ducayn khayr allah siiyo khayr fara badan allah siiyo khayr badan allah siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u gargaaro dhammaan dhallinyarada kulligood mustaqbal wanaagsan allah wada siiyo guur wanaagsan allah wada siiyo intaan guursanin guur wanaagsan allah siiyo inta guursadee guur kale rabta ma u ducaynaa mise waan ka daynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walbaba qalbigiisa waxa ku jiro oo ilaahayna raalli ka yahay allah siiyo meel kastoo joogaan ba allah barakeeyo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نمن مدحه خير دائما كشقيو أخونا نور الدين وهذا نبرد دعالي يا دمان مدح هذا وطن كان مسلمين تاع سومالي وتاجن دينته يا الله بركيو
إن شاء الله كل جود دعاء ذا إن شاء الله كل الله نقبله سبحانك اللهم فاميلي كان سومالي ذا يسكت بتجسنا صلحي وناق الله دحده وضدقه وصلى الله على نبينا